waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa Channel Global News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah musuqmaasuq la yaab leh oo ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee Puntland aqalka sarana waxay ansixiyeen xubno ku matalaya guddiga dastuurka halka Puntland ee durbaba ka hortimid arrinkaasi iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan warbixin ku saabsan 11 qatar dhaqaale oo ay dawladda Xasan Sheikh wajihi karto sanadkan 2022 qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwa ugu door corona warka Channel Global News fadlan daawaday hadda nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina channelkan aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkana sii share gareeyo si uu gaar asxaab badan oo idin kamid ah laagtiinana way noo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan waxaa laga warhelay musuqmaasuq la yaabay oo ka dhacay xarunta wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland wasiirka caafimaadka maamulka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa xaqiijiyay in la lunsaday 300 oo kartoon oo ay ku jiraan buskud loogu talagalay in la siiyo caruurta ay soo wajahda nafaqa xumada lunsashada buskudkan ayaana ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay isticmaalkiisa iyadoo abaaro ba'ani ay ka jiraan Puntland ee caruur badani la ildareeyeen nafaqa daro sida ay xaqiijiyeen hay'adaha qaabilsan arrinkaasi qaar kamid ah waardiyaasha wasaaradda caafimaadka qaybteeda Garowe ayaana u dhacay mid kamid ah baqaarada keedka buskudka sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka oo la hadlay warbaahinta wasiirka ayaa tilmaamay in ay kaamirooyinka qarsoon ka heleen muuqaalo muujinaya cid qaadatay buskudkaasi wuxuuna sheegay in falkaas uu dhacay 2 bil ka hor iyagana aysan horeyba ka ogaan wuxuu iska fogeeyay inay mas'uuliyiintu ku lug leeyihiin arrinkan isagoo sheegay in haatan socoto baaris iyo sidii shaqaalaha dambigaasi galay loogu qaadi lahaa dambiga ay galeen maxkamadna loo horgeeyay lahaa geesta kalena aqalka sare waxa uu ansixiyay xubno ku matalaya guddiga dastuurka halka Puntland ee durbaba ka hortimid xubnahaasi xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa shir gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi kulankan ayay senataradu iskaga soo dhaxuleen 5 xubnood oo ku matali doona guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka labada aqal ee Soomaaliya kadib gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku dhawaaqay magacyada xubnaha la soo xulay waxayna kala yihiin koow Cabdi Xasan Cawaale Khaydiid oo laga soo doortay dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo 2 Iftiin Xasan Iimaan Baast oo laga soo doortay dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo 3 Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo isna laga soo doortay dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo 4 Saalax Axmed Jaamac oo hadda wasiirka dastuurka isla markaasna aqalka sare ku matalaya gobolada waqooyi ee Somaliland laguna doortay magaalada Muqdisho iyo 5 Xasan Xuseen Xaaji oo hadda wasiirka cadaaladda Soomaaliya lagana soo doortay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo xubnahan ayaa waxa ku soo biiri doona xildhibaano kale oo laga soo xuli doona golaha shacabka waxayna si wada jira uga shaqeyn doonaan dhameystirka dastuurka dalka soo xulista xubnahan aqalka sare kadib waxa wararka hoose uu helayo Global News ee tilmaamayaan in madaxda sare ee Puntland ay durbaba saluugeen habka loo soo xulay xubnahan shanta iyo waliba in shakhsi ka socda Puntland laga dhaxwaayo xubnaha aqalka sare ku matali doono dhameystirka dastuurka dalka Puntland ayaana la sheegayaa in saluuga arrinkaas la xiriira ay durbaba u gudbiyeen madaxda sare ee guddoonka golaha aqalka sare inkastoo aan la ogeyn in cabashadooda wax laga qaban doono hase yeeshee dadka qaar ayaana qaba fikir ah in Puntland ay sugato xubnaha kale ee ka imaanaya dhanka golaha shacabka oo laga yaabo in xubno dhankeeda ka socda ay ka soo galaan halkaasi inkastoo la filan karo in xubnaha ka imaan doona golaha shacabka aysan waxba ku yeelan Puntland waxaana Puntland lamida dowlad goboleedka Hirshabelle oo iyaguna xubin ka waayeen xubnaha shanta ah ee aqalka sare ku matali doona dhameystirka dastuurka dalka waa hagaagay daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan 11 khatar dhaqaale oo ay dowladda Xasan Sheikh wajihi karto sanadkan 2022 waxaa bartamihii bishii May ee sanadkan dalka ka dhacay isbedel siyaasi ah iyadoo laga soo gudbay sanad iyo bar hubanti la'aan iyo firaaq dastuuri ahaa sidaasi oo ay tahayna maamulkan cusub ee madaxweyne Xasan Sheikh ma wato uushii Nabi Muuse oo waxa uu wajihi karaa qatar dhaqaale iyo khalalaas maaliyadeed taas oo looga badbaadi karo oo kaliya xukuumad waxtar leh kalsoonida beesha caalamka iyo wada shaqeynta hay'adaha labada heer ee dowladda dhexdeeda oo dhinaca iyo waliba
is-aaminaada dowladda federaalka labadeeda heer iyo shacabka oo dhinac kale ah. wasaaradda maaliyadda ayaa saadaalin maaliyadeed ee miisaaniyadda 2022 ku sheegtay khataro dhaqaale iyadoo intaa raacsiisay in walaacoodu uu weliba aad u daran yahay. COVID-19 xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegaysaa in dilaaca fayraska COVID-19 ama musiibada kaleba ay horseedi doonaan hoos u dhac dhaqaale oo gudaha ah, taas oo soo dadejin karta in dibadda lagu tiirsanaado. waxaa kale oo halis ku sii ahaan doona abaabul kasta oo laga galo dakhli ururin. 2 kobaca dhaqaale ee deeqaha horumarineed. Soomaaliya waxa ay weli si weyn ugu tiirsan tahay kaalmaha horumarineed ee ka imaada saaxiibada horumarineed, iyadoo ayadu qaar ee diiradda saareen hubinta xasilooni dhaqaale ee dalalkooda, arrintaas oo u badan in qulqulka gargaarka si togan uu saameyn ugu yeesho Soomaaliya. Arrinta saddexaad waa sicir bararka. daahida roobabka bartamaha sanadkan iyo saadaasha xilligan qalalan ee bilaha Oktoobar iyo Diseembar waxay u badan tahay in si xun uu u saameeyo wax soo saarka cuntada gudaha, taas oo sii xumeyn doonta waxqabadkii hore u liitay. si cadaadiska sicir bararka hoos loogu dhigo, dowladda ayaa waxaa la gudboon dib u soo celinta awoodda shilinka Soomaaliga in la yareeyo daabulida lacagta adag. arrinta afraad waa qiimaha sarifka. doolarka Mareykanka waxa uu sii ahaan doonaa lacag nabdoon ee maalgashayaasha waqtiga hoos u dhaca. xoojinta lacagta doolarka Mareykanka ayaa saameyn xun ku yeelan doonta awoodda shilinka Soomaaliga, taas oo keenaysa inuu hoos u sii socon doono qiimaha sarifka lacagta marka la eego xilliga dhexe. arrinta shanaad waa dhoofinta saafiga ah. joojinta xajka 2022 ayaa si weyn u saameysay dhoofka Soomaaliya, iyada oo dalabkoodana inta badan ku xiran yahay bariga dhexe gaar ahaan xajka. arrinta lixaad waa cimilada xun. khataraha dhaqaale ee wasaaradda maaliyadda ee saadaalisay waxaa ka mid ah sida wax soo saarka wadanku hoos ugu dhacayo iyada oo lagu sameynayo hanaanka cimilada oo guracan. arrinta toddobaad waa kororka wax soo jeedinta. saadaasha cimilo xumida, roobab la-aanta iyo abaaraha oo sii jira waxa ay horseedi doonaan inay kororto wax soo saar dejinta oo ay yaraadaan ama meesha ka baxaan wax dhoofinta, taas oo khatar ku ah dhaqaalaha dalka. arrinta sideedaad waa amaahda dowladda. dhamaystirka deen cafinta bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika oo lagu dhawaaqay rubicii hore ee sanadkii 2020 oo ay ku dhawaaqista deen cafinta naadiga Paris ayaa hoos u dhigtay deemihii dowladda ee muddada gaaban. arrinta sagaalaad waa yareynta heerka dhaqaalaha ee horey u xadidnaa. waxa ay qayb ka qaadan doonaan in Soomaaliya ay waajib ku tahay bixinta dulsaarka waqtiga ku habboon iyo bixinta lacagaha muhiimka ah ee ka soo horjeeda waajibaadka taagan. arrinta tobanaad waa horumar la-aanta dowlad goboleedyada. horumar yarida ka jirta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, gaar ahaan abaabul la-aanta dakhliga gudaha iyo ku tiirsanaantooda deeqaha caalamiga ah iyo dowladda federaalka ah waxay halis ku tahay dhaqaalaha dalka iyo horumarkiisa. arrinta ugu dambeysa ee 11aad waa saameyntii doorashadii oo muddo jiitamaysay iyo gelistii firaaqa dastuuriga ah waxa ay keentay in sanadkan bilowgiisa la diyaariyey miisaaniyad 3 bil oo ku meel gaar ah, iyadoo oo kharash ka baxay muddadaasi uu ahaa qabyo qoraal miisaaniyadda 2022 taas oo lagu daray miisaaniyadda cusub oo inta badan ah saadaalin. haddii sida la rabo oo aan loo helin waxay khatar ku noqon kartaa dhaqaalaha dalka. khatarahaasi aan sheegnay kuma jiraan khataraha amni iyo qaar kale oo dal ama dibadda laga filan karo. si looga gudbana ay waajib tahay in maamulka cusub ee madaxweyne Xasan Sheikh iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Bare ay dalka ka hirgeliyaan xukuumad ee wasiiradoodu la imaan karaan aragti iyo aqoon dalka looga samata bixin karo khataraha aan soo sheegnay kana fog iyo nin jecleysi. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warki oo aad kala socoteen janalka Hubal News fadlan daawade hadda nagu cusubtaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararka aan ku baahina janalkan. aragtidiina halka oo nagu reebo muuqaalkana si share gareeya, laagtiinana waa inoo muhiim waana ku maasantiin daawashadii la socodka warka janalka Hubal News.